iminkana aan eegno warbixin wariyahayaga Maxamuud Axmed Warsame oo naga soo diray magaalada Kismaayo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka Golaha Wasiirada dowlad goboleedka Jubaland. Kulanka ayaa markii ugu horeysay golaha uu ka dooday qodobadii ka soo baxay shirkii Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada dalka, iyadoo falanqayn kadib ay Golaha Wasiiradu taageereen dhammaan go'aamadii ay madashu gaadhay, waxaana ay si rasmi ah u hakisay Jubaland wada shaqayntii ka dhaxaysay dowladda federaalka Soomaaliya. Dhanka kale, wasaaradda caafimaadka ayaa ka warbixisay waxyaabihii u hirgalay labadii bilood ee lasoo dhaafay, oo ay ka mid ahaayeen tababar dhakhaatiir qalliinada guud iyo qalliino loo sameeyey in ka badan 200 oo qof oo faruurla ah. Waxa kale wasaaraddu ay soo bandhigtay qorshaha dib u hirgelinta 2 isbitaal oo ku yaala magaalooyinka Hirshabeelle iyo Baardheere oo ka tirsan gobolka Gedo. Wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ayaa soo bandhigay qorshaha dabagalka iyo dardargelinta kaalmada bini'aadanimo ee loogu talagalay dadka ku dhaqan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland. Markii uu soo ilaaday shirka Golaha Wasiirada ayaa waxaa warmurtiyeedkii ka soo baxay warbaahinta la wadaagay wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta tiknoolajiyada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Injineer Cabdi Xuseen Maxamed. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. September 13 2018 shirkii khamiislaha dowlad goboleedka Jubaland ee Golaha Wasiirada dowlad goboleedka Jubaland oo uu shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam fadhiyeen madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo madaxweyne ku-xigeenka labaadba iyo dhammaan Golaha Wasiirada waxaa lagaga dooday laguna falanqeeyay warmurtiyeedkii shirkii saddexaad ee Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada ugu dambeyn Golaha Wasiiradu waxay si buuxda isugu raaceen taageerada dhammaan qodobadii ku qornaa warmurtiyeedkaasi, waxayna goluhu ugu baaqayaan ummadda Soomaaliyeed golayaasha baarlamaanka sida Golaha Shacabka, aqalka sare iyo beesha caalamka in ay gacan ka geystaan sixitaanka waxa khaldan ee ay dowlad goboleedyadu ku soo bandhigeen warmurtiyeedkadii shirkii saddexaad ee Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada Jubaland. waxaa intaasi shirkaasi ka dhacay maanta magaalada Kismaayo, magaalada madaxda ku meel gaarka dowlad goboleedka Jubaland. intaasi ayuu ku dhamaaday. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Maxamuud Axmed Warsame, Somali News TV, magaalada Kismaayo.